السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Caleenta geedka nacnac waa dawo dabiici ah oo adduunka oo dhan caan ka ah, waxaana caleenta geedka nacnac loo adeegsadaa siyaabo kala duwan. Laakiin arrinta ugu cajiibsan ayaa ah in la isku daro caleenta geedka nacnac iyo biyaha laga tuujiyo liin dhanaanta, kadibna la cabo xilliga maalinimo. Waxaanaynu soo qaadan doonaa 10 faa'iido oo ay jidhkeenna u leeyihiin marka la isku daro caleenta geedka nacnac iyo biyaha laga tuujiyo liin dhanaanta. Waxaanay kala yihiin kow. Waxay si la yaab leh jidhka uga saaraan fayraska, waxaanay dawo ka yihiin hargabka, waxaanay jidhka ka saaraan qabowga. 2. Waxay ilaa xad wanaajiyaan shaqada kelyaha, iyagoo kelyahana ka nadiifiya quruuruxa ku samaysma. 3. Waxay guud ahaanba dejiyaan dhammaanba neerfayaasha jidhka. 4. Waxay dawo la yaab leh u yihiin xanuunka rheumatism-ka, waxaanay ka hortagaan dhammaanba xanuunada ku dhaca kala-goysyada jidhka. 5. Waxay sidoo kale dawo la yaab leh u yihiin dhammaan xanuunada ku dhaca maqaarka, waxaanay jidhka dawo uga yihiin noocyada kala duwan ee xasaasiyadda. 6. Waxay nadiifiyaan beerka, waxaanay guud ahaanba wanaajiyaan caafimaad qabka uurku-jirta. 7. Waxay furaan marinnada dhiigga ee dhammaanba jidhka oo dhan, gaar ahaanna wadnaha hadday ciladi ku timaado. 8. Waxay ilaa xad dawo ka yihiin xanuunka gastriga noocyadiisa kala duwan, waxaanay caloosha ka saaraan gooryaanka. 9. Waxay dawo ka yihiin dhammaan xanuunada ku dhaca xameetida. 10. Waxay dawo ka yihiin xanuunada ka dhasha sunta kaneecada, waana inaad koob biyaha oo kulul ku darto caleenta geedka nacnac, kadibna aad qaboojiso. Markaa kadibna aad ku tuujiso jeex liin dhanaana, kadibna aad cabto maalintii hal koob. isla dhinaca kalena Igliil jabal ayaa ka mid ah dhirta caanka ku ah dawo-dhireedka, waana geed aad loo isticmaalo. Waxaana ku jirta maaddo aad ugu fiican dhiigga, kana dhigta wareegga dhiigga mid si fiican u shaqaynaya. Dhinaca kalena waxaa lagula taliyaa dadka ka cabanaya caloosha, sida dibirada iyo calool istaagga, inay qaabka shaaha oo kale u isticmaalaan geedkan. Dhinaca kalena waxaa geedkan ku jira maaddo jidhka difaac uga ah kansarka. Inkastoo wax kastoo dhacayaaba ay Ilaahay qadarkiisa ku dhacaan, cidina aanay hor istaagi karin Ilaahay qadarkiisa. Dhinaca kalena geedkani wuxuu jidhka dawo uga yahay inflammation-ka, waxaanu xad u yeelaa dhibka ka iman kara xanuunka bawaasiirta. Waxaanu dejiyaa madax xanuunka, waana xanuun biyo wanaagsan. Waxaanu sidoo kale xad u yeelaa oo dejiyaa xanuunka dhanjafka. Waxaanu aad u wanaajiyaa caafimaad qabka afka, gaar ahaan ciridka, waana marka biyo diiran oo geedkan lagu daray lagu luqluqdo subaxda hore. Waxaanu aad u wanaajiyaa xasuusta, waxaana lagu tiriyaa cabitaanka geedkan inuu aad u xakameeyo xanuunka Alzheimer. Waxaana loo isticmaalaa in geedkan la daqiijiyo, kadibna lagu darsado shaaha ama biyo diiran.